baabajay muuqaalka qaawan qaabka looga helay aan idin sheegayo baabajay kaliyana ma ahan 10 qof oo kale oo caan ah laga hayaa video ay qaawan yihiin oo adiga hadda idaawanayana aan leedahay qofkan asaga ma ahan suurtagalna ma noqonayso alna ma ahan labana ma ahan saddexna ma ahan kumanaan ayagoo ah bay rag buuxaan oo wada qaawan dumar waa la sirsirtaa waa la gartay waa laga aqli baday laakiin nin rag ah sababta ku kaliftay si aad sirta ku duugan iyo sababtaba aad u ogaatid muuqaalkan sheerna noo dheh si la gare assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wa bacdeen arrinta haddaan u gudagalno maanta barnaamijka miiska inoo saaran aan ka hadlaynay ayaa wuxuu ahaa baabajay arrintiisa haddaan gudagalo baabajay horta waa qof magac leh social media ku dhex jiro baabajay kaliya ma ahan boqolaal kale oo magac leh way jirtaa oo niman ah waxa hadda hadalka uu ka taagan yahay maalmahan la wadana miiska saaran baabajay arrintiisa haddaan u gudagalo sida tooska caadada ahaydna aan ka hadlo baabajay arrintiisa saxda ah ama sida videoga looga qaaday horta aan idin hayo maxmo baabajay kaliya ma ahan 10 kaleeto oo caan ah oo wada qaawan oo video laga hayaa jirta adigan haddana daawanayo ama nala joogtidna aadan aqlisanaynin aadan niyadaadana ka dhaadhacsiinaynin hebel waa nin markuu video iska soo qarxiyo oo video laga helo waxa la dhahaa waa laga keenay naag baa sirtay naag baa saan yeeshay naag iyadoo ah oo dumar ah oo konton leeyana markii laga soo helo idinkii nimanka ahaaba ugu sokeeyo oo inta soo qaadana waxa tiraahdaan hebel baa u duubayday hebel baa saayeelay heblaaya la soo qarxiyay abba fahmaysan hore Soomaalida u tihiin siiba ragga aad kun iyo koojeer idinka qalad kale idinku qalad gashaan ladii ma qabto dumarka u qabanaysiin dabarjo ku sameynaysiin waa xisaabaysiin noloshooda hal u xisaabaysiin hano hadalka hadda ku sii dheeraanaynin ina horta oo waqti badan aan ku bixiyo inta uu soo fadhiisan baabajay maanta kaliya runta waxa ay tahay ina ka hadlo halkan soo fariista runta waxay tahay horta baabajay su'aasha koowaad aan weydiinayna waxay tahay naag miya maxay snap ugeey baabajay marka waxa aan weydiinayna waxay tahay qaas ani aan weydiinaya waxay tahay sababta ku kaliftay ama ku qasabtay asagoo nin rag ah inuu snap tago video iska duubo oo dhaxdhiga maxaa ku kalifay maxaa u keenay magac la'aan ma hayso hanti la'aan ma hayso inta saddex hayso rag ceebtiisa maahan ma halkaas intuu istaagdo barsaygoodii waxba iska kay bedelay dadkaygiyo bal wax ii soo fiiriya ma sameeyay sababta ku kaliftay isagoo qaawan oo curidiisu banaanka tahay intuu isqaawiyay waliba sidii hooyadiis ku dhashay ah inuu video soo duubo oo soo dhaxdhigo snap waa arrin weyn horta taas yaanan baabajay kaliya la fiirin kun iyo kow qof oo kale oo caan ah jirta oo buuxda wax soo saaro indhaha runta ka saaraa loo laayahay rabbi baa cabsida naga mudan 2 mitir baana sugayso nin walba boosku leeyahay iyo hadalku mudan yahay hala dhaho hadda waxa aragna mid haaf ah biri waxa soo socoto kuwa ka daran hadda haafa aragne sama biri kuwa kala soo socdaan okay isla asagi baabajay ahaa muuqaaladan maanta hadda kan haafka laga hayo kuba ka daran oo isla asaga baabajay waa la heli waana soo socdaan oo shaki kuma jiro inay soo socdaan shaki kuma jiro waa ninka intaas ay ka suurtooday ka badan way ka suurtoodaa sida ahaato warka waxa idin ku soo gabagabeynayaa ani baabajay magaciisa sharaftiisa horta uu beelay halkaas uu beelay raggiina intii qunnayd oo dhan sharaf dhacbi u soo jeeday wax badan waa la dhahay heblaaya dumarka ceeb u geysatay laakiin maanta ragow wiidi ciibeeyay marka dhaaxo inta meel soo fariisto asoo usha sa u wareejinaya meel soo fariisto dhahay dhaax oo laga garbaxaya marka hadda asay taaganta walaga garbaxaya lagu gudaya fahmaysin saaxaad marka waxa idin leeyahay anoo dooda sii dheereynaynin oo waqtigana soo afjaraayo muuqaalada kale oo idin sheegay oo idin irina way jiraan baabajay kaliya ma ahan way soo baxayaan idinkana la yaabi doono marka aad aragtaan hadhowti yaana la dhihinsaan ma loo maleynaynin isaan may noqoto xaalku sidee ahaato waxa idin leeyahay wassalaamu calaykum